qarnigan gumaysigii dhiilqiisha galayo qurubuhu xoroobeen kii qaybidin helay ha ka qaylininaba qarsoodi wuu dhammaadee kay qalooc la tahayo annagu quusidiinay qarsoodi wuu dhammaadee kay qalooc la tahayo annagu quusidiinay qorraxdii xornimadiiyo qaranniman haleelayo annagu quusidiinay nabaddu qaali weeye kii qayma ridayo wayno qaryabkii nabaddu qaali weeye kii qayma ridayo wayno qaryabkii بسم الله الرحمن الرحيم قرب جوجتا كسو جيدا قبل كسيتي كنا قندلك أستراليا قارها مقالة ملبون أيها شركية لتي مقالة داس شركاس ولا جهد لاي تبعتون ككتاعن قبل كسيتي هي كعضو كعيد يرد هرمود ككتاعي دون بديد كأ حق در كأ شركاس وتاجر بحلوسين اللي يرداس وحال لو فلان قيني تبعتون كاسكتاعن iyo sidii taageero buuxda loo siin lahaa dhalinyaradaas dulmadiidka ah ee xaqooga raadsanaysa ee ku dulman dhulkoodii hadaladoodiina waxaa ka mid ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أنا جوا قرب جوجتا كنا ذلك أستراليا ما أنت هالك وحنا سكون من ما أنت سيدي لاتنك بشي أفراد لبقي سيدي توانكا وحالك ما أنت سكون مني سي يعني تاجر عن سينو أنا بقى هذا اللون مقالة سعدي باتوين كتاجر قبل كسيتي iyo yani kacdoonkaas barakaysan nabadgelyada ah xaqdoonka ah dhalinyaradaas magaranaysaa gobolka city ka soo jeeda ay ku kaceen oo aad iyo aad magaranaysaa u taageerayno taas oo yani dhibaatooyin isa soo tarayay ka dhashay arrintaas inaan ka hadalno maanta aan iskugu nimidna halkaan u fadhinaa arrinka intaanan bilaabana waxaan ku bilaabeen aayado qur-aana waxaan kusoo dhaweynaa sheekh xuseen فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. walaalayaal kulankan barakaysan ee walaaluhu ay iskugu yimaadeen si ay u cabiraan shucuurtooda iyo duruufta ka jirta mandiqadeennii maanta xaaladda ka jirta oo aan dareensannahay inay runtii wax aad iyo aad noo yaabgelisay ay tahay iyadoo muddo badanba ay xaaladdu ay soo jirtay laakiin baraarugan dhalinyarta iyo odayaasha
iyo cid walba oo dareen leh aan u dirayno maanta masaajka aan u dirayno ama aan u dirayno fariinta waxa weeyaan cid kasta oo dareen leh oo dareemaysa mandiqadana degan gaar ahaan cidda ka mas-uulka ah waxaanu leenahay ilaahi subxaanahu wa tacaala cid walba meel buu dejiyey cid laga rari karo oo laga fujin karaa ma jirto nin walba ilaahay mandiqad buu dhigay oo maaragtay arlada ilaahay dhigay mandiqada ilaahayna dhigay oo gobolka city ee dadkeenu ay degan yihiin dhibaatada ay ku jiraan waan wada dareensannahay cid kastoo mas-uulana way dareensantahay way garanaysaa waxaan fariinta u diraynaa oo maantaan fadhigaa meeshaan u fadhinaa ay tahay cid ka maaragtaanay awood weyne ma jirto cid maqoonin kartaa ma jirto cid maaragtaanay haddii au baraarug uu dhaco in si xal ah oo wanaagsan oo cadaalad ay ku dhahan tahay ummadda loo eego ayay u baahan yihiin marka ummadda meeshaa degan ee maanta dhalinyarta dareenkaa waxa ay dareemeen waxaan rabnaa cid kastoo mas-uuliina inay hoos u eegaan aynan xoog ku muquuninin ayna dhibaato u keenin haddii kale waxaa imanaya isku dhac weyn iyo burbur iyo dhibaato ayaa ka dhalanaya saa darteed waa inaan ka digno meel kastoo la joogo cid walbana uga digno waxaan muujinaynaa marka taageerada aan u qabno dhalinyartaasi baraaruga ay baraarugeen in ay cadaalad helaan oo gobolkooga cadaalad ku helaan oo dadka mas-uulka ka ah ee xoogga ku muqoninaya ay faraha kala laabtaan xorriyadna ay u siiyaan siday waddankoogii iyo dhulkoogii ay u maamulan lahaayeen oo iyagu ay xornimo ugu heli lahaayeen xuquuqdoodiina ay u heli lahaayeen ay la-aayeen intaa iyo intaasoo sano ay la-aayeen waddanka dadka degani waa dad musaalimiina weeyaan waa dad nabadgelyada jecel intaas dhibaatada dhacayso oo dhan way dhaafeen wax huba iyo wax dagaal iyo wax kala hor imaada haddaanan la rabin inaan la iska hor keeno dadka oo aanan maaragtaanay say wax u dhaceen gobollada kale ee Etoobiyaba ay uga dhaceen iska horimaadku aanan la rabin in iska horimaad lanaga hor keeno gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee wada degan deegaanka aanan la rabin hub la iskugu dhiibo waxaan rabnaa oo aan ka dhiidhiirinaynaa in ummadda xuquuqdoodii la siiyo walaalaha kale aan gudbinaya hadalkaan oo ku dheeraaday raaniga ahaada wajazaakumullahu khayran بسم الله الرحمن الرحيم halkan maanta waxaan u nimidnay oon u fadhinaa annaga oo gargaar u muujinayna dhalinyarta ka dhidhiday ee xaqdoonka ee dulmadiidka ee dhulkoogii waxbaan maaragtay aan ku hayn inta muddaa 10 sano in gaaraysaba iyo in ka badanba dhibaatooyin xoog ay lagu hayo waxaan maanta aan u fadhino inaan u muujino inaan garab taagannahay kacdoonkaa nabadaysan ee nabadoonkaa ee wax dhibaato aan lahayn oo diidaya dhibaatada lagu hayo dadka degan mandiqada gobolka city annagu haddaan joogta gobolka kasoo jeeda city kasoo jeeda haddaan nahay odayaasha degan qurba haddaan nahay waxaan raacsannahay dhalinta xaqooga doonaya ma raacsannahay dowladda federaalkana waxaan u sheegaynaa in ay eegaan dadka oon hubsidan oon dagaal aanan rabin oo dadka nabada ay yihiin xaqooga doonaya dulmiga diidaya inay eegaan ay shucuubta dulman ee Ethiopia ka mid yihiin uguna horeyso gobolka city ugu horeyso ka dambeeya gobollada kale oo dhan ka dambeeya xaquuqdoodiina dad kale ay qaateen waxaan leenahay dadweynaha degan gobolka siibahaan odayaasha dhalinyarta oqaasha waxgaradka dhammaan inay ciyaarkaa taageeraan ay garab joogsadaan iyagoo si nabdoon oo xaqdoona ay ku taageerayn waxaa kaloo fariin u dirayaa dadka kasoo jeeda gobolka ee ku jira dowladda qilika la shaqeeya waxaan leenahay ciyaarka xaqooga doonaya inay wax dhibaato aan u geysan waxay doonayaan waa xaqoogii waa wax ka maqan waa wax dulmi lagu hayo weeyaan waa wax meel iskool male dhakhtar male nolol male marka waxa uu ka diidiyeen waa wax soo arrintan maanta timidana waa arrin soo jirta weeyaan
وعيمكي مدنا ما أنت أردت عن أول فلان على وياشا قوة كسر جذا سيتي مع أستراليا يكونوا لك هذيان وعرف فينا إن تجرب وحق ونبذل بفينا هذا الكلام يروح عن كسر جمنتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله كلا أيام هذا الكلام يقول تجرب بسم الله كل هذا الكلام لا يبصون به سنة شغلي كعضو كان مانتا يعني أنتوا كوضع قبل كسيتي وحي يعني مالني هبين كل شيء معها والظلم يسوي ترى دنيا الحد لهاي تعدي الله عبيلين وأنت أصلا في السعودية بوب لكم على بوبية دي بعرشة وحلا اللي راح دور لوري مدة ولوك لكم بوبية وحنا لنا أنا ما دعنا هاي كل بجوب تقدر في أستراليا قبل كسيتي كسر جدا هنا كسر جدا دي بعرشة ده أصلا شيء أو يعني لين عمرك الله ديو جس لقو justification لقو ديجان هيو أما لقو حلال يسريو دولك يعني راسيتي هين يدو شقاليه يعني دتك ودا شيء قبل كسيتي واحد اللي ميل كان جينا كونا واسكسو بدلنا كان كنا كوي قال سور يجي كرياشة ولا فريال كوي كلام هالكن يكاو مركوتالين تاس وكسور الجنة وحاربنا يعني راسيتي إنه يقول كوبا يجو حرو هذان iyagu ay maamushaan iyagu ay magaranaysaa taladooda ay ka go'do wax allaala wax dhibaato lagu hayana laga daayo waxaa kaloo rabnaa heedha wixii dibaajada loogu talagalay in waxooga iyagu ay yani u madax banaanaadaan waxaad arkaysaa mataqaanaa gobolladii kale sida loo horumarinayo baajadadii la siiyay ku horumarin tayadana waa lagu tuntaa laaluush baa lagu bixiyaa meelo kale lala aadaa marka waxaasi wax dee magaranaysaa dadka qaban karaya maaha dadka reesiti waa dad nabadoona nabadda jecel weeyaan inta Ethiopia soo jirta weligeed ba nabad bay ka shaqeynayaan waa dadka ugu Ethiopiaansan Ethiopia ciidaga ka jecel ma jirto ayaan oran karaa because hada waa dad nabad jecel oo Ethiopia nabad la jecel haddii aanan la rabin mataqaanaa markaas dadkaas hada inay hada waxaan wax kale isku rogaan de waxa weeyaan hada in la dhageysto weeyaan Soomaaliduna waxay tiraahdaa talo baa la yiri waa mar aad garan weyday iyo mar aad gaari weyday maanta talada haddaad garan weydaan oo dadkaas la xaali weydaan بريتولا ميلاد كقبتان ما قرنسا ميلاد كسو قبتان تلاداس waxaa loo baahan yahay marka fariintaydu waxay ku socotaa ra'iisul wasaaraha federaalka ah mudane ra'iisul wasaare waxaan ku leeyahay shalay dadkii heedha ku hambaliyay baan kamid ahay annaga hadaan reesitinahay waxaana kugu hambaliyeenina khudbadahaaga iyo waxa aad ka hadlaysid wax wanaagsan buu ahaa waxaad ka hadlaysid dulmi in la dulmidiida tahay oo nin alla ninka dulminaad u heelinayso inaad corruption la dagaalamayso inaad cadaaladda magaranaysa hergelinayso in xeerka Ethiopia magaranaysa uu dhigayo aad hergelinayso haddana magaranaysa waxaan arkaynaa waxyaalaha ka dhacaya gobolka magaranaysa city oo xeerkan waafaqsanayn sababtoo ah qodobka 19 xeerka 29 ee xeerka Ethiopia wuxuu dhigayaa dadku inay mudaharaadi karaan si nabadgelyo ah hadayna violence ama rabshada ama wax jijibin hadayna la iimanayn xaq inay u leeyihiin inay ra'yigooda cabiraan haddana waxaan arkaynaa dadkii waxba aan sidan hubaan sidan ra'yigooda cabirayay xaq ayaga doonaya daragii lahaa in hada dhamaantood la xirxiray in federaalka iyo magaranaysa kilalkuba ay iskugu tageen marka mudane ra'iisul wasaare waxyaalihii aad ku baaqday wali waan sugaynaa inaad ka dhabaysaan u baahanahay waana maasantiin walaalaha ikraam uga baxay بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكوال الدميي وحين أقول لها dadku haday ayna ahayn mucaarad ay leeyihiin wixii xaq aan u lahayn ee degmo ahaan iyo gobol ahaan xaqeygii baan rabnaa anu ma arkaba wax maad aragtay dib ah in maad aragtay laga jawaabo oo maad aragtay la hor fariisto la qadariyo oo wixii xaq u lahaayeen loo ogolaado ba maad markaa ahayd hadda ilaa 2 toddobaad bay marayaan oo dil iyo xarig iyo cabrin lagu hayaa waxaan halka u soo fariisanay haddaan nahay dadkii deegaanka ka soo jeeday lana shaqeynayay hadday tahay safaarad iyo hadday tahay dawladda deegaanka iyo hadday tahay federaalba waxaan leenahay anaku haddaan ma ogolin inaad dadkayga sidaa loo cabriyo waa in sida ugu dhaqsaha badan loo dhameeyo arrintooda intaasaan kaga baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم horta dhammaan waxaan salaamayaa walaalahayga halkan isugu yimi ee ka socda
جاهلية ودنك أستراليا جارهن مجال ملبن وقديد دن ما أنت أنا سكوني بأي تهاي قديد كسر إنسان قبل كسومالة إثيوبيا جارهن قبل كسيتي أنا جو ضد كهالك أكو أبتر صداقة أيانو سكوني بي عبشة سوتشي تنتي ونطابتي cabashadaasi waxay ku sal lahayd xuquuqda gobolkaasi leeyahay maadaama markii horeba gobolkaasi populationkiisa uu aad u badnaa oo populationka koowaad oo ahaa haddana markii horeba waxaanu tirsanaynay dulmi badan waxaanu ka tirsanaynay 9 gobol baa laga dhigay waddanka 9kii gobol hal gobol baan laga siiyay haddana waxba kamaanaan hadalo waxaan nidhi walaalaha iyaga kale haddii ay inoo qaateen wax dhibaato ah ma jirto waxaan noogu xigay haddana in gobolka yagii la yidhi maamulkii hala dhaadhiciyo degmooyinkii hala dhaadhiciyo waqtigaa la dhaadhicinayay laftarkaygu anigu waan joogay waqtigaa kililka hase ahaatee sidan maanta ummaddii ay noqotay way ka duwanayd waxay ahayd cid walba inay iskeed isu maamusho gobol walba gobolkiisa uu dadkiisa iyo populationkiisa maamusho dakhligiisa dowladaha hoose ama masagaajahana ay u madax bannaanaadaan deeqdii wixii ay tahay heer kilil iyo heer federaal ah si toosa gobolka iyo degmadii baarlaman baa loo sameeyay gobolka iyo baarlaman heer degmo ah baa la sameeyay iyaga wuxuu budgetkooda ay u dhaadhacayso la ansixinayay waxa ka soo wareegtay hadda wax la yiraahdo dib curasho oo meel ay ku saleedahay aanan garanaynin wadankuna wadan shuuciya maaha waa wadan dimuqraadi ah Ethiopia wadamada dib curasho la leeyahay kelmadaasi waxa weeye wadamada shuuciga ah ayaa lagu dhaqaa waa inay qodobka horta Ethiopia hoos ugu dhaadhacdo in ay tahay wadan dimuqraadi ah iyo in ay tahay wadan shuuciya taa waxaan ka leeyahay qodobkaasi dib curashadu la sheegayaa waa mid horta dadka iyaga aan u aragno annaga in lagu dulmiyo waanu ogolahay in maamulada marka hore la isku shaandeeyo oo way jiri jirtay laakiin hadafkaasi uu ka duwan yahay goboladii qaar baa la geenayaa kuwa yagina qaar baa la keenayaa taas wax dhibaato ah umaanaan arkaynin waxayna aad markaad dhinac ka eegto ay isdhexgalka populationka ayay ka turjubaysay marka sida wanaagsan loo raaco laakiin hadda maamulka iyo kililka waxaad moodaa sida qaldan inuu arrintaa u turjuntay taasoo ah kuwa yagii marka xaggaa la geeyey ee aanu moodayna isdhexgalka in laga waday kuwa yagii waa lasoo dhaadhiciyey mar la yidhaha waa muusanaaw mar la yidhaha waa kiisas aan jirin baa loo sameeyey suuqi dirna bay wada fadhiyaan marka waxaan leenahay war sidii ay ahayd ee constitutionku wax mar walba socdo weeyaan ummad baa dhigatay haftidaasi goor la isugu yeedhay oo laga codeeyey maanaan garan waqtiga hore constitutionka la dhigayo 9 qowmiyadood 9 kilil waa loo dhannaa wuxuu ku sal lahaa qowmiyad walba iskeed inay isku maamusho 9 region xeerka waqti la bedelayna ilaa hadda ma garanayno arrintan waxaan leenahay heer kilil iyo heer federaal ba way dib u eegaan ta kale waxaan leenahay horta gobolkan waa gobolka ugu nabdoon ee habeen iyo maalinba la marayay midda kale waa gobol istiraatiiji ah dadka deegaankaana waxaa lagu yaqaanaa dad nabadgelyada waddanka iyo isdhexgalka bulshada ay horumar weyn ka gaadhay baldaabaan taariikhda kaga qoran waxaan idin sheegaynaa waqtigii dagaaladii Eritrea iyo Ethiopia ay dhaceen gobolka kaliya ee labadiisa jid qowmiyadaasi ay degan tahay gaar ahaan waliba qowmiyadda Ciise ay degan tahay weeye ilaa Djibouti ilaa laga bilaabayo Diridhaba ilaa Hawaash labadii tuuba ee Ethiopia ay ku noolayd waddankaas u maraa waxaan ognahay baabuurka wadada ku xumaada in ay dadka deegaankaas ee Ciise ay dabka ku agshitaan oo inta birta Addis Ababa loogu maqan yahay oo u sii ilaaliya iyadoo cidina ku masruufaynin deegaankii caynkaas ahaa maanta haddii ay dhalinyaradii waddanku ay dhibaato malaha adeega bulshada uu ku yar yahay waddanka gobolka intaa leeg ee populationkii ugu balaadnaa uu degan yahay jaamacad malaha hal jaamacad lagama dhisin hay iskuulo malaha dirnabay hay iskuuladooda ka dhigtaan macallimiin quality oo ku filan oo loo qoondeeyay ma jirto adeegii bulshada inta badan way ka aradan yihiin waxaanu leenahay arrintaasi waxa dadka kiciya waa inta dadkuna dad mucaarada maaha waa dad nabadgelyada ku soo caanamaalay odayaashooda iyo ugaaskooda iyo dadka populationka ee gobolkaasi degan waa dad taariikh baal dahaba kaga galay xagga nabadgelyada weligoodna mucaarad ma soo dhexgelin soona dhexgeli maayo laakiin waxa ay tabanayaan
dowladda federaalka xitaa message baanu u gudbinay oo open lettera oo prime ministerka u diray waxa weeye haddii dadka iyaga maanta kacay lala hadli waayo waxa ku soo gaban doona waa la garanayaa ee aan dadka iyaga ahayn waa la garanayaa waddankaasi in badan ba istiraatiijiyadiisu cid kale ay raadinaysay siduu ciise u kici lahaa ama dadka qowmiyadda gobolka City ay u kici lahaayeen waxaanu leenahay arrintaasi waanu ka xunnahay dadka iyagana waanu si boodsannahay waxay ka dhiidhiyeen waanu la qabnaa waanayna damqaysaa maadaama gobol nabadgelyo lagu ogaa waxa kiciyeyna ay tahay maamul xumadaasi dowladda federaalka ah waxaan leenahay si dhaqsaa u soo farageliso taa qodobka intaas kaga baxaya mas'uuliyiintan sheegaya walaalahaya idinkuna dadkooda u maqan noqdo dad ku maqan ha noqonina wixii dhibaato halka ka dhacana maamulkii baa tihiin xaq baad u leedihiin inaad ummadiina dhex gashaan oo aad kala dhex gashaan laakiin ma aha haddii ay inamada aad xitaa qaar qabataan jeelal baa jira aad u gudbin kartaan dirna baa jira jigjiga aad baan uga xunnahay jeelka aad u gudbiseen aad iyo aad bay noo damqaysaa waxa weeye kuwii la hadli lahaa dalkoodii oo odayaashoodii la hadli lahaa baa tiin dhalinyaradoodii la hadli lahaa baa tiin kuwa ku maqan baan maanta annagu taariikhdeediin aragnaa aad nooguna jirtaan waxa weeye kuwii u maqnaa baan annagu ahayna kuwii ku maqnaa maanaan ahayn waanaan iswada garanaynaa cidda aan la hadlayana waa dadkii weliba gobolka City ku abtirsanaya mas'uuliyiinta u hayay heer gobol iyo heer kalilba midna waxaan farayaa dowladda dhexe ee Itoobiya maanta ra'iisul wasaare waxaasi aad baan ugu hambalyeynay meel kastana waanu ka soo dhaweynay waanaan si boodsannahay xukuumadda iyadaas aadna waan ugu riyaaqaynaa isbeddelka cusub iyo hadalladii uu jeediyey aad baan u soo dhaweynaynaa midse waanu aad markii xukuumadda cusub uu magacaabay aad baan taana laftirkeeda aanu ugu dhaliilaynaa waayo xukuumaddu gobolkii ugu ballaarnaa baanu nahay qowmiyadda laba qowmiyadood baa meeshaasi ku tartama waa lays yaqaanaa Soomaali labada qowmiyadood ee ku tartama 1 iyo 2 baan ku kala tartanaa saddexda xil ee prime ministerka cusub aan ka sugaynayna saddexda xil ee uu magacaabay ee golaha wasiirada ana waanu ka caradanaa prime ministerka cusubna inta waxaan leeyahay aad uga fiirso fariintaasi si gaar ah ayaan federaalka ugu dirayaa annagoo ah qurba joogta dhammaan gobolka City ku abtirsatana meel kastoo ay joogto waa dad nabadeed waa dad mar walba nabadda barbar taagan wadajirka Itoobiya barbar taagan wadajirka Soomaalida Itoobiya barbar taagan kala foqoqoqoodana ka xun cid kastoo kala foqoqaysana waanu ka xunnahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaan ka tagayna walaalahay baa aan uga tagay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan taageero buuxda waan u diraynaa kacdoonka nabadda dhibaatadooda ka dhiidhiyey ee maanta sare taagan waan diidnayna waan garab joognaa yiri hoob waan haynaa hadda fariin direct ku socota Mr. Ilay Abdi Umar waxa aad sameynaysid iyo dulunka aad ku wadid gobolka City inaad adduunka qarsoontaad ismoodaysaa may this is 21st century waxa uu moodayay markii maamulka lagu dhiibay ee lagu aqbalay ee welcome lu yidhi ama furan inaad for the last 10 years intaad xukuumadda hayso aad iska dhaaf jaamacade hal elementary aad ka dhisan aad ceelka qudin aad dadkii noloshooda dib inuu socoto mooyaane hal horumar aad ka samayn oo budgetkii loogu talagalay federaalka Ethiopia aad direct meelo kale u gudbisid oo dadkii u dhashay gobolka City sida refugee ay u nool yihiin waa unacceptable totally iminka ya haatanna enough is enough
dulmigaa dadka ku haysa jooji waa lagaa dhergay dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa please Mr. Prime Minister of Ethiopia, the budget for city area, city region, should go direct to city people, not to Jijiga. We had enough of it. And again, to Mr. Abdi, stop killing our people and stop this naked aggression on our people. Wundim Gashe, Abdi. Yaleno 21st century. Balnafo Asara Matat, and the school can Asaraham, forget university. Your city region action budget yednum hedo min sarra lahagar action la hizb action la misba forsi hizbu katana sabin la kawo kabna kanakab stop killing them, prisoning them, and give them their full freedom. We had enough of you, brother. And city do not need outer people from Jijiga to administer them. City people are quite enough and capable of governing themselves. Bring back our budget and get out of our land. Thank you. Kenya khas berbiya city jiran ila awashi ila shinile warkhenya khayati hakai sani berbadi aka Ethiopian mangisti lalte jo le khate amma hakai sani berbado aka khanani fi fena nuti biya city ti khaisati agja wara jiruda da nutis jole khate khana gargaru fena nuti wara Australia juru isa is jole khate khanaf aka gargatani fena Prime Minister Ethiopia's yo na dagay sa dubi khiyas yo rabbi sadat uti jole khana gargari rabshango isani rabshanin godaniti waraga abdi ile rabsha gode jole khana amma jole dus hide jan kan dage yo gati dagay sa dubi khiya jole khana anu gadila kasani feda. Okay, I'll change it to English. We, the people of Australia, the Eastern community of Australia, would like to support our youth that are already uprising and against the oppression of Mr. Muhammad Abdi Ile. So all I'm saying is, please, if you Prime Minister of Ethiopia, if you can hear me, I would like directly to ask you to intervene and send your people to our youth that are suffering, getting tortured. They are in prison. All they want is their rights. They are very educated kids. They were born in that area, which there's no resource, there's no university, there's nothing for them. So in that circumstances, what do you expect them to do? All they want is their rights. They are non-violent. They are not violent people. Our people live there for thousands of years. They're not violent people. All they want is their rights. And all of you, Ethiopian federal government, if you can hear me, please intervene and give them their rights. That's all we say. We are non-violent people. That's all I'm saying. Thank you very much. Please help them.